bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal ku soo dhawaada qodobada ugu dooran warka warbaahinta codka gobolka Banaadir waxaana kamid ah madaxweyne Farmaajo magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed ra'iisul wasaare Khayro soo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo shalay iyo maanta Muqdisho ka socday warmurtiyeed laga soo saaray shirka iskaashiga Soomaaliya iyo caalamka dawladda federaalka Soomaaliya oo lagu amaanay sida ay uga go'an tahay ka guulgaaridda qorshaha deyn cafinta iyo taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka oo sheegay inay wadaan howlgallo ka dhan ah al-shabaabka ku sugan gobolada dhexe intaas daawadayaal waxay ahayn qodobadii ugu dooranaa warka warbaahinta codka gobolka Banaadir minkan waxaad u diyaar garoodaan warkii intaan ka faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo darajada sareeya guuto u dalacsiyay Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa wareegto ugu magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo noqdo mudane Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif sareeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif ayaa bedelaya taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka booliska sareeya guuto Saciid Axmed Kadiye madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa u rajeeyay sareeya guuto Cismaan Maxamed Cabdullaahi Kaniif inuu Allah u fududeeyo gudashada howlaha muhiimka ah ee horyaala wareegtada madaxweynaha oo salka ku haysa dadaalada joogtada ah ee sare u qaadista amniga iyo dib u habeynta laamaha ammaanka ayaa dhaqan galaysa laga bilaabo xalay oo taariikhdu ku beegneed 1 bisha Oktoobar sanadka 2019 ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa soo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo goobjoog ka hayeen wakiilada beesha caalamka wakiilo ka socday hay'adaha caalamiga ah iyo in ka badan 50 dawladood shirkan oo dhamaadkiisii warmutiyad laga soo saaray ayaa intiisii ugu badan looga hadlay tubta siyaasadda loo dhan yahay tubta horumarinta dhaqaalaha tubta horumarinta arrimaha bulshada iyo tubta amniga iyo cadaaladda iyo ka wada shaqeynta horumarinta mustaqbalka dalka iyo dadka Soomaaliyeed iyada oo taageerada beesha caalamka lagu saleynayo tubaha qaranka mudane Xasan Cali Khayre ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in wada shaqeynta madaxda dalka ay horseeday in horumar laga gaaro isbedelka xasiloonida dawladnimada iyo ajandaha dib u qaabeynta sida wadajirka ah ay u taageereen shacabka Soomaaliyeed iyo saaxiibada Soomaaliyeed ee caalamka kuwaasi oo soo celisay rajada ummadda Soomaaliyeed dhammaan mas'uuliyiintii khudbadaha ka jeediyay kulanka ayaa isku raacay in horumar ballaaran lagu tilaabsaday tan iyo markii la qabtay shirkan ka horeeyay ee sanadkii 2018 waxaana la isku raacay in wadajir loo shaqeeyo si horumarka loo joogteeyo saaxiibada caalamka ayaa qiray guulaha Soomaaliya ay ku tilaabsatay ayaa hoggaanka dalkana ku amaanay horumarka ay ka sameeyeen ajandayaasha dib u habeynta ay ka mid yihiin hagaajinta maamulka maaliyadda dawliga dakhliga la tashiyada qorshaha cusub ee qaranka dib u habeynta amniga guulaha laga gaaray howlgallada al-shabaab ka dhan ah iyo sare u qaadida adeegyada bulshada iyo dib u heshiisiinta ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya waxa uu cadeeyay in dhalinyarada Soomaaliyeed oo ah tirada ugu badan ee bulshadana ay diyaar u yihiin inay ka qayb qaataan horumarinta dalka haweenka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba ay diyaar u yihiin ka qaybgalka siyaasadda taasi oo meesha ka saaraysa dhaqankii hore ee ahaa in siyaasadda dalka ay koox yari hogaamiyaan ugu dambeyntiina taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka ayaa sheegay inay wadaan howlgallo looga saarayo al-shabaab deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dhexe ee dalka wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda federaalka Soomaaliya taliyaha qaybta 12aad ee ciidanka xoogga dalka iyo taliyaha ciidamada AMISOM ee qaybta Hiiraan oo dhuusamareeb ku kulmay ayaa ka wada hadlay xoreynta deegaanada ay al-shabaab kaga sugan yihiin dawlad goboleedka Galmudug wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdi Maxamed Sabriye oo kulan la yeeshay taliyaha qaybta 12aad ee xoogga dalka iyo taliyaha AMISOM ee qaybta gobolka Hiiraan ayaa kala hadlay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dhexe ee dalka taliyaasha ayaa wasiirka kaga warbixiyay xaaladda amni ee deegaanada Galmudug iyagoo sheegay in ay wadaan howlgallo al-shabaab looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin dawlad goboleedka Galmudug guud ahaan daawadayaal warkii idinkaga imaanay warbaahinta codka gobolka Banaadir xilligan waa naga intaa